waxaa jaamacadda magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer lagu qabtay xaflad qalin jabin oo ka qalin jabinaysa ardayda jaamacadda magaalada Burco. Munaasabadan oo ka dhacday hoolka jaamacadda magaalada Burco ayaa ka soo qayb galay guddoonka jaamacadda Burco, madaxda xisbiyada siyaasadda, xildhibaano, madax ka socota dowladda dhexe, wasiirro, agaasimayaal, wasiirro dowladeed, waxgarad, waalidiin iyo ardayda qalin jabinaysay. Munaasabadan ahayd mid siyaasad loo soo agaasimay waxa ugu horreyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Burco Maxamuud Aadan Dheri, gudoomiyihii hore jaamacadda Burco Barasabka gobolka Togdheer, gudoomiye ku-xigeenkii hore xisbiga mucaaridka wadani Axmed Muumin Said, wasiirka hore wasaaradda maaliyadda Cabdicasiis Samaale, sidoo wasaaradda caafimaadka gobolka iyagoo dhammaantood hadalkaas kaga daba qaatay muhiimadda waxbarashadu u leedahay dadka iyo dalkaba iyo waliba doorka jaamacaddu kaga jirto doorka jaamacadaha dalka. wuxuu ahaa waxbarashada, waxbaridda, qiimaynta iyo horumarinta shaqaalaha kala duwan oo aqoontooda kor loo qaadayo. wuxuu ahaa cilmi baadhista in jaamacaddu aad ugu tallaabsato hadday cudurrada tahay nooc kastoo uu yahay, hadday tahay arrimaha kale ee bulshada, dhaqaalaha iyo waxyaalahana waa tiir labaad. tiirka saddexaad ee jaamacaddu aadaan uga qayb qaadanaa waxa weeye waa adeega bulshada. had iyo goor waa caado jaamacaddu leedahay si bulshada loogu adeego. qodobka saddexaad waxa weeye macallimiinta aanu tababaro oo iyagana markaanu tababarka siino aanu ka daba tagno ilaa sekondariyaasha. sida xaqiiqda ah sharaf weyn bay ii tahay anigoo idinka raagay. waxaan sheegayaa hadda waxaan u jeedaa markaa waa guddida iyo jansalarka jaamacadda iyo ragga jaamacadda wada iyo ardaydaba. markaa aad bay farax iigu tahay saaka inaan ka soo qayb galo qalin jabintiinna. farxad gelisay Saleebaan iyo guddidu shaqada ay ka qabteen jaamacadda intaan maqnaa. markii aan xilka wareejiyayna joogtay kuleedaha badankooduna ay kuleedihii bilowday xilligii aan joogay. hambalyadaasi ardayga inuu dareemo weeye maanta oo dhan halkan looga hambalyeynayo. markaa la raacayna si wanaagsan buu u socday ilaa iminkana waa kaa sida wanaagsan u socda. ummadda iminka jirtaa ilaahay marka laga marqaati kacayaan been laga sheegaynin. jaamacaddani halkaa ay taagantahay quruxdaa ma yeelateen haddaan xukuumaddu gacan mugle ka geysan. inaan noo marqaati kacdaan baan eegaynay inna laga abaalka dare runtii maanaan eegaynin. way jirtaa runtii in waxyaabo badan oo la ballan qaaday oo aan dhammaystirmin, laakiin waxaan qabaa inaanu xukunkana ku soo noqon doono. iminka waxa dhimanna halkan aanu kaga dhawaaqi doono. aanay noqonaynin mid maamaah nagu noqotaa waxa xukuumadda siilaanya looga bartay. wax kastoo ay ballan qaado raggii buugga qoray waa joogaan. haddaad eegto dheeraad mooyaane 99% waanu qabanay. aanay halkaas soo gaadheenna ilaahay ha ka abaaliyo oo ha uga dhigo ubadkii waalidkooda samafalka u samayn lahaa ee abaalkooda gudi lahaa ee bari waalidayga ka soo bixi lahaa. oynu ubadkeenna dibadaha u geyno maanta Burco iyo Hargeysa iyo Boorama iyo Laascaanood iyo Ceelgaabo in ubadkeenna lagu bara aynu u baahannahay. waa inaynu ku ixtiraamnaa oo ku soo dhaweynaa oo aynu mahad gaar ugu noqonaa. yaana ku xaaji Cabdi Xuseen waa daahiya Somaliland waxay dheer tahay Soomaaliya ama ummadaha kale. waa xaaji Cabdi Xuseen weey. Burcana waxay dheer tahay Somaliland inteeda kale. محمود آدم يريد. أكل وحيوان كاسك هذا وزير دولة وزارة waxbarashada agaasimaha guud wasaaradda waxbarashada wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda waxaana dhamaantood mahad naqdisho ka weeyaan haldoorka jaamacadda Burco oo la dardaarmay ardayda qalin jabisay. runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay guulaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu galladaystay ee aynu maanta isugu nimin ee aynu ku wadaagayno haddaynu nahay wasaaradda waxbarashada taagan oo la badan yahay mas'uuliyiin badan ay isu timi jaamacadda laga fikirayo oo sharciyadeedii uu markaa la soo qaaday. sida aad ka warqabtaan tacliinteena sare waxaa la aasaasay 97kii iminka 20 jir weeyaan. taqriiban dhalinyarta qalin jabinaysa ayay la bilaabantay. waa qaangaadh weeye laakiin waqtiyadii hore dhinaca tirada ayuunba xoogga la saaray
waqtigii dambena waxaaynu xoog saarnay inagoo hanti badan iyo waqti badan aynu gelinay inaynu tayada waxaynu ka qabanno. kolley runtii waxaa la yara carabaabay haddii aan ku horeeyo oo guddoomiyuhu sheegay mashaariic yaraa baaqatay lama odhan karo way baaqatay laakiin dhammaystir bay u baahnayd insha allah arrintaa waxaynu rajaynaynaa in dhammaystiranto xiriirna waynu samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo wixii ka dhinaa dowladda awooddeeda ama waqtiga yar ee gaaban ha noqotay harsan ama future-kaba ha noqoto. gabagabadii waxaa shahaada sharfi la guddoonsiiyey ardaydii ka qalinjibisay jaamacadda burco. intaasi dabadeed waxaa iyaguna darankooda ku aadan ka qalinjibinta jaamacadda ka hadlay ardaydii dhammaystay xafladda isla markaana loo qabtay xafladani. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacaygu yahay maxamed faatax cabdilaahi oo ka baxay kulliyadda dhaqaalaha economics waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ay xafladdii tahay. waxaan dhammaan u mahadnaqayaa ilaahay baan mahadnaqay marka koowaad marlabaadka waalidkayga oo run ahaantii iyo macallimiintayda dhammaan jaamacadda dhan mahadnaqayo. magacaygu waa Sadiq Cali Suudi oo ka baxay jaamacadda Burco kulliyadda economics. kulley maanta waxaan qaadanay digriga koowaad ilaahay baa mahad leh. waxbarashada waa barbilow dhalinyartuna waa inay waxbarashada sii xoojiyaan oo heerka labaad sii gudbiyaan. ilaahay baa mahad leh dhammaan cid kastoo gacan ka geystay waxbarashadeeda. magacaygu waa Farxiye Cali Nuur waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Burco gaar ahaan faculty of economics. halkan waxaan uga mahad celinayaa marka koowaad ilaahay marka labaad waxaan uga mahad celinayaa waalidkaygii igu soo tabcay inta wax soo bareeyay macallimiintaydii asxaabtaydii waalidkaygii ahliga qaraabo intii ii hambalyeysay intii kaleba maanta aad baan u faraxsanahay ma sha Allah alxamdulillah. galaaskaygii ardaydii aanu 4 sano soo dhigaynayna waxaan leeyahay hambaliyo congratulations. suurtageliyay inaan dhamaysto waqtiga dheer ee runtii juhdiga badan iyo waqtiga badan iyo runtii aan soo galay waxaan marka hore aan u mahad runtii aan ka doonayaa inaan uga mahad celiyo waalidkay oo intaas oo dhan runtii garab taagnaa. waxaan kaloo jeclay inaan u mahad celiyo maamulka jaamacadda gaar ahaan maamulka kulliyadda dhaqaalaha ayaan ka baxay. axmed jaamac xajadan axmed digura muuqbaaya telefishinka caalamiga Soomaali News TV Burco.